maanta oo laga reebo iyo dadka Soomaaliyeed oo runtii dad fitno iyo diintooda raba inay ka fidneeyaan in looga digo iyo in cidii culimada kamid oo Ilaahay khayraas iyo rag badan baa meeshan duruus ka wado oo dadka kitaabo u akhriyo in cidii cilmigaas ka faa'iideysanayso culimada ay barto dabcan dhalinyaradana cid walba oo khayr wada culimada garab bay siinaysaa wayna la jirtaa cid walba oo runtii khalad ku socoto culimada way ka soo horjeedaa dhanna lama jirto aad baynu runtii u diidaysaa aad baynu uga soo horjeedaa wax walba fitna ah dabcan cid walba oo qaldan oo u sheegnaa marka culimada cid gaar ah ay la jirto ma jirto qof isaga iska hadlay oo hadal gaar ah sheega waa gaar labada dhinac doona ha noqdo dhalinyarada laakiin culimada cid ay la jirto ma jirto waa maasantahay sheekh isla su'aal kale oo aan taa ka fogeyna qabaa waxaa jirta kala daadsanaan iyo hoggaan la'aan dhanka culimada ah arrinkaas ma sax baa mise waa malaheed culimada kale u dhiibaya Sheekh Ibrahim iyo Sheekh Cabdirasaaq iyo Sheekh Mahdi iyo Sheekh Umar dhamaan qaabka u qaadanaysaa idinka idin taala Sheekh Cabdirasaaq waa taale insha Allah بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أرتو هرقبسنا هاي كان نرى هذا معركة إن بدل ما هاد لكره برنامجكم بان كقيب قلا يا مو يعني والله ليال علماء لحظة وحكرة دار سنة نعم جرتو كلام هوس كأننا مركي كون الله وياري وعليه إنه ياري وحي إنه ويارين إن في النبضان أي كجرتو هل كان أو ضد كي الدين تلوقف في اثنين سيداسي علماء أي كوي مادين kadibna markay culimadu ay soo galeen sidii caadiga ahayd barnaamijyada dacwada nidaam bay leeyihiin nidaamkaas oo maaragtay guddi soo diyaariya dacwada uu ku jiro culimaduna sidaas ay ku shaqo galaan way jirtaa mararka qaarkood in barnaamijyo aan lagu talagelin oo dhinac ka soo dhaca ay mararka qaar soo dhacaan laakiin haddana arrimahaas dhawaan ay culimadu go'aan fiican ka gaareen waxayna noqon doontaa sida hadda howluhu ay ku socdaan in wixii hadda ka dambeeya barnaamijyada la gelayo iyo qaabka loo gelayo iyo kulli nidaamkaas ay soo wada maraan sidaasaan ku shaqeynaa muxaadaro iskama akhrino ilaa qofka muxaadarada lagu qoro barnaamijka uu qabanayo maaragtay loo soo diyaariyo guddi baa jira muxaadarooyinka isku soo kale waxaa jira oo hadda aan rabnaa iyadana inaan gooni u samayno horena u jiray laakiin la xoojiyo dadka ama guddiga u gaarka ah wixii raba in shubuhaad laga saaro ama ciddii rabta in wax lagala doodo arrimahaas oo dhan qaybahaas dhimanaa qaybahaasna hadda habeentooda ugu dambaysa socota marka culimada way leedahay barnaamij iyo nidaam laakiin ma jirta habacsanaan mararka qaarkood nacam maxaa yeelay culimadu ma aha dad iska fadhiya meel oo shaqeeyaan kulligood oo nin walba shaqadiisii ayuu ku jiraa famil baan ومع ذلك haddana hawshii dacwada noo dheer wadamada aan joognana hawl baan ka haynaa intaas waxyaabooda isku jira waad garan karaysaa qaabkay tahay laakiin sida guud intaasaan uga baxaya Sheekh Ibrahim wax ku dareeyo شاء الله ومارتي وسيف عم بدو مارتي وحبا وكدر سنك تاع علماء عندي شيخ عبد الرزاق عبد العزيز ما شاء الله معناها علماء إن هجانكود ومدي هاي وحكوا دليلا هذا هل كان قف أوفلاين وأن أجنه هاي إنه هذا قدرنا قصة بير مارتي مو يعني إن قف نجم مغنين haddaan hogaankaygu midaysnayn intana qof meel caawa maartay kugu wada yimaadeen Sheekh Maxamed Ali waa laga yaabaa inay gadaal naga soo biiraan xilligan salaada ku jira wallahi alxamdu tabaaraka wa taala taasi waa ta koowaad in culimadu ay hal qof wada yihiin anigu aan ahay inta kalena aniga ay yihiin taasi waa qodob oo maartay xagga waa ka midaysanahay xagga kale wuxuu yiri nin ba maamaha wuxuu yiri haddaan wallahi wuu reerka saan leeyahay selay oran annaga dadka yagi ayaa fidna ku dhex jirta marka dad fidnaysan oo maartay culimadii intay maqlayaana ay kooban tahay nin oday u ah ama caaqil u ah ama sheekh u ah ama kala celinaya ilaahay awradiisi maasturin marka annaga hogaanka iyo maartay waxa aan ugu dhaliilaysaan waxa weeyaan maartay waa qoyskay aan ka dhalanay waxaan ku gabagabeynayaa dumarku inta badan ragga aad bay maartay ninka gabadha fiican qaba reerka uu ka soo tooso waa la yaqaana marka gabadh waxoogaa yar maartay kulul baa nin baa guursaday
markaasay tabca ku martay asagoo maartay daawihii la dubayo oo shaahii la karinayo oo marka sodohdii baa qaylisay oo halkii inanteedii ninkii tabcada ku martay ee maartay lagdiisay ay kala hadli lahayd bay tiri aw hebelow markii ninkii baa joogo wuxuu yidhi annaga wuxuu yidhi maartay aw hebel muxuu wadaabay maartay aw hebel dhibku wadaaba maxay buu yidhi maartay miyaanu samayn jiray in annagu aanu ama daawaha jishino canjeerada lagu dubayo ama kiliga shaaha waa lana wadaayo sodiga arkay hoggaan xumada naga muuqata waa wax ay dadweynahayaga iyo bulshadayada maartay tabaq dhoonsan oo soddonka nooci ay maartay cawro ay noo yeeleen oo aanay nagu ixtiraamaynin oo maartay kaanu qol ka xidhnaa aanu maartay na yeelaynin oo maartay duco iyo deeq iyo dadnimo iyo maartay dad wixii lagu ixtiraami jiray aanu aad uga cabanayno bulshadayada dhibka maartay ay nagu haysa mooyaane annagu waa midaysanay waana dadaalayna ilaahay idin barakeeyo aad baad mahadsantahay sheekh ibraahim iyo shacbi saasiilo oo ku dambeeyey caawa su-aalaha kullu fare kama qodna waktigaa keena mooye inaan culimmadeena su-aalaha caynkan weydiino ma jeclaadeen laakiin kulli waa su-aalo xaq ah waana su-aalo aan hubo inaad ka jawaabi kartaan waa aad baad u mahadsan tihiin dhowr su-aal baa hartay su-aasheeda kale waxay tahay maalmihii ugu dambeeyey ama bilooyinkii ugu dambeeyey Clubhouse waxaa ka jiray waxa la yiraahdo qabiil ilaa la gaaro gaal hebel waa igu reer marka waxaan idin weydiinayaa culimada cudurkaas ma saameeyay iyagu oo ma jirtaa in iyagu qabiil ahaan u kala qaybsameen mise waa cudurkii Soomaaliya ka jiro inta ku soo faafay bal su-aashaas jawaabteeda aad inaan nooga qeybqaysaan jeclaan lahaa soo dhawaada sheekh mahdi sheekh tajuddin iyo ragga aan weli hadlin sheekh abu xasan sheekh cumar iyo insha Allah idinkaas kale السلام عليكم تاج الدين تفضل. عفوا كابو شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد horta bilxaqiiqa marka halkan abkan ragul isugu yimi raga culimada ah xaqiiqatan yani badankoodu yani khayrka iyo marka meeshan isugu yimaadeen oo bas ayaa rag badankoodu isbarteen waxa isku barteen khayrka iyo diinta islaamka ayuu ahaa iyo dacwada islaamka maxay u tari karnaa sideedaba markay tahay diin islaam ama shariicada islaamka marka laga warramayo shariicada islaamka asalkeedu wax qabiil leeyahay kuma dhisna waligeedna kuma dhismin kuma dhismi doonto waayo sunnada ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay ugu asteeyay ayaaba ah in diinta islaamku aysan qabiil aysan marka horeba aysan u dhisnayn tusaale cad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka soo saaray reer quraysheed maka waa magaalada uu ku dhashay reerkiisuna marka ay deganaayeen 13 sano nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu dacwada ka waday ee uu ka wadi kari waayay ayuu iskaga baxay inta uu tashadeen oo ay ku tashadeen inay dilaan oo ay ku tashadeen inay xidhaan ama inay misaafuriyaan wa idiyam kurbika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk saddexda qodob bay ku tashadeen nabiga calayhi salaatu wasallam inay xidhaan inay misaafuriyaan ama inay dilaan nabiga calayhi salaatu wasallam ilaahay wuxuu qoray inuu wadanka oo uu ka dal doorsado waana kii magaalada Madiina nabiga tagay calayhi salaatu wasallam marka waxaan leenahay horta dacwada islaamka hadii qabiil wuxuu tarayo reer quraysheed ayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasallam qabiil wuxuu tari lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasallam reer quraysheed ka dhashayna magaaladiisii uu ku dhashay iyo reer tulki kama carareen iyaguna ma iriyadeen marka waxaan leenahay horta diinta islaamka wax qabiil leeyahay kuma dhisna waa qodob ninka isagoo dacwad wada ama inuu dacwad sheeganayo isleeyahay qabiil baad ku gaari kartaa dacwada islaamkana waa nin naftiisana been u sheegay diintana ka been sheegay weey walidalik ayaysan dacwadu maadaama islaamka aysan taa ku dhisnayn qof kasta oo daaciya waxa looga baahan yahay inuu shicaarkiisu noqdo shicaarkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadaaciyan ila allahi biidnihi wa sirajan munira in ummadda xagga ilaahay loogu yeedho oo ummadda ilaahay subxaanahu wa ta'ala xiriir rasmi ah say ula yeelan lahayd loo yeelo marka oo ilaahay lagu xidho laakiin shakhsina aan lagu xidhin koox gaaran aan lagu xidhin qabiilna aan lagu xidhin dacwadda islaamku saasi ku salaysanta marka waxaan leenahay mar haddii dacwadda dabeecadda islaamku ay saa tahay annaguna aanu nahay dad ducaada oo dadka muslimiinta ee walaalada iyo ee muslimiinta ee Soomaaliyeed ee adduunka iyo daafaha caalamka kala jooga
aanu risaalada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dacwadda islaamka wixii kartideeda ama taagteeda ay tahay inaanu khayrka iyo wanaagga aanu la wadaagno annagu qabiil wax qabiil yidhaahdo yani oo dacwaddaas ku caana maasha annagu ma jirto garanna mayno annaguna wax qabiila annagu wax meelaha la dhurayo waa maqlaynay waxyaaba meelaha ka baxayn annagu waa maqlaynay laakiin annagu waxaas wax saameyn nagu yeelan kara ma nihin waayo waxaan ognahay diinta islaamka inaysan qabiil ku dhisnayn waa kow haddaanu annagu aanu isnaa diinta islaamka qabiil u adeegsadana inuu ilaahay subxaana wa taala dhabarka naga jabinayo dacwaddaas aysan noqonayn dacwad mubaaraka oo barakaysan aysan noqonayn ayaanu dareensannahay oo aan ognahay qabiilkuna nabiga wari calayhi salaatu wasalaam dacuuha fa innahaa muntina war ka taga wax qarmuun oo urusaba nabiga wari calayhi salaatu wasalaam waa sida baktiga oo kale qabyaaladu marka wax dacwad islaam ay ku dhisantana ma aha guntiya gunaanadkii ama farwa weyn ama shicaar weyn annagu qabiil ma nihin dad ducaad ila allahi tabaaraka wa tacaala ayaanu nahay ummadayda soomaaliyeed khayrkii wanaaggan la wadaagaynaa qabiilna annaga horey nooma saamayn inuu dib dambena saameeyana wax dhacaysa maaha ninka isagu isleh culimada ama qabiil baad ku riixan kartaa ama qabiil baad ku saamayn kartaa ama hebel qabiil baad ku soo jiidan kartaa waxaan leeyahay fariin cad candhuuftaada dib u lig wahayhaat ayaan leeyahay taasi wax dhacaysa maaha aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum